وحمانتا لسوق بقبيي أو للشاعيي ترى حلبانada kasoo baxaya maamul goboleedka waqooyi bari ee loo garan ogyahay SSC Khaatumo way ugu dambeeyay dhismaha maamulkaasi uu socday 83 xildhibaan ayaana laga soo xulay oo tirada wadarta guud ee xildhibaanada maamulkaasi uu noqonaya saddexda gobol ee ka kooban yahay maamulka waqooyi bari sida ay xildhibaanada u kala heleen iyo sidoo kale qanaacada bulshada iyo habka dawladda federaalka iyo maamulka waqooyi bariba ay u maareeyeen isqaqabsiga iyo sidoo kale sida loo kala yeelanayo xildhibaanadaasi ayaan soo qaadan doonaa oo dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale mid iyo labo ka dul istaagi doonaa loolan culus oo socda kadib dhamaystirka soo xulidda xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka waqooyi bari laba talaabo oo hadalhaynteeda maalmaha soo socoto aad u xoogaysanaysa ama u xoogaysan doonta ayaa xigta oo loo gudubaya waa loolanka doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenka baarlamaanka iyo waliba doorashada madaxweynaha maamul goboleedka waqooyi bari ee markaasi SSC Khaatumo la oran jiray labadaasi doorasho oo loolankeeda iyo tartankeeda iyo hadalhaynteeduba ay taagan tahay maalmaha inugu soo aadanna gaari doonta ama noqon doonta midda ugu hadalhaynta badan ayaan iyadana soo qaadan doonaa iyadoo musharaxiin badani ay taagan yihiin waxaan dhinaca kale mid iyo labo ka dul istaagi doonaa darafyada maamulada darafyada ka xiga maamulka waqooyi bari sida Puntland iyo Somaliland oo hanjabaado xoogan ay ka soo baxayaan iyadoo waliba dhinaca kalena la tuunsan yahay in xiriir hoose labadaasi maamul ka dhaxeeyo taas oo ay ku heshiiyeen in meesha laga saaro maamulka iyaga dhaxdooda laga sameeyay ee waqooyi bari ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ay goordhow ku soo dhamaystirtay magaalada Laascaanood ee caasimada maamulka SSC Khaatumo talaabooyinkii ugu dambeeyay iyo waliba khudbadaha madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Somaliland ay soo saareen go'aanada culus ee markaasi ka dhanka ah maamulka waqooyi bari ayaan iyadana dul istaagi doonaa hadduu Allaahimo soo dhawaada muuqaalka like saaro aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay waxa la soo dhamaystiray oo waliba la dhaariyay oo la shaaciyay xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka waqooyi bari 83 xildhibaan ayaa tirada guud ee xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulkaasi ay noqonayaan maanta ayaa la dhaariyay dhamaantood iyadoo waliba ergadii soo xureysay oo in ka badan 700 oo markaasi ka kala socotay gobolada ay markaasi laga soo dhax saaray 83daasi saddexda gobol ee maamulka waqooyi bari uu ka kooban yahay ayaa u kala qaatay sidan gobolka Sanaag 37 xildhibaan ayaa ka soo baxaya gobolka Togdheer 16 xildhibaan ayaa ka soo baxaya gobolka Sool 30 xildhibaan ayaa ka soo baxaya muhiim aha in qabaa'ilada iyo sida ay u qaateen la shaaciyo balse tirada guud ayaa ka dhigan 83 markii la isku daro 37 16 iyo 30 oo saddexdaasi gobol sida ay u kala yeelanayaan ama ay uga soo kala baxeen ama looga soo xulayba xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka waqooyi bari maanta ayaa lagu dhaariyay magaalada Laascaanood ee caasimada maamulkaasi iyadoo waliba wax buuqa iyo wax tabasha beelaha ee markaasi degan maamulka waqooyi bari aysan markaasi ka muuqanin taasoo macnaheedu ay tahay in qaabka loo soo xulay iyo hanaanka loo soo markaasi loo soo xulay xildhibaanadanba ay tahay mid qanaaco badani ay ka muuqato oo markaasi beelaha wada degan maamulka waqooyi bari ama wada dhistay maamulka waqooyi bari ay ku midaysan yihiin oo beel walba markaasi ay ka dhex aragto matalaadooda dawladda federaalka oo muddo bil ka badan fadhiday magaalada Laascaanood xubnihii markaasi federaalka wasiirada ee federaalka ka socday ayaa qayb weyn ka qaatay dhinaca farsamada soo xulista maamulkaasi golaha wakiilada maamulkaasi iyadoo markaasi dhammaan beelaha iyo dadka deganba shirar badan iyo kulamo badan iyo waliba la tashiyo laga sameeyay isla markaana wax wadar ogola laga soo saaray ugu dambeynna maanta la dhaariyay oo xildhibaanadii loo dhaariyay laba talaabo ayaa xigta oo hadda loo gudbaya waa doorashada gudoonka golaha wakiilada ku-xigeenka gudoomiyaha iyo waliba ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha oo iyada naftirkeeda miiska saaran ololaheeduna oo maalmihii ugu dambeeyayba uu soo socday
guddoonka doorashada guddoonka waxaa gudbisay ilaa iyo dhowr qof oo ku tartamaya loolan adag ayaana loo geli doonaa maalmaha inagu soo aadan iyada oo hadalhaynta ugu weyn maalmaha inagu soo aadan ay noqon doonto cidda markaasi ku soo baxaysa guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka waqooyi bari ama SSC Khaatumo midii aad u taqaanaba madaxweynaha iyadana miiska ay saaranto way ku xigtaa oo doorashadii madaxweynaha ololaheedu waa socdaa maalmihii ugu dambeeyay waad arkayseen u dambeeyayna waad arkayseen musharaxiin fara badan oo markaasi soo bandhiganayay khudbadahooda iyo sidoo kaleeto waxa qabadka ay qaban doonaan ama sida ay wax u qaban doonaan soo bandhigayay oo shirar waaweyn ku qabanayay magaalada Laascaanood ee caasimada maamulka SSC Khaatumo waad arkayseen maalmaha inagu soo aadan marka labadaasi ayaa dhiman oo maamulka waqooyi bari hadalhayntiisu ugu weyn ay noqon doontaa isha ayaan ku hayn doonaa qaabka loolanka siyaasadeed ama loolanka doorasho ee markaasi guddoomiyaha baarlamaanka iyo waliba madaxweynaha maamulka waqooyi bari maamul goboleedka waqooyi bari iyo sida ay wax u dhacaanba way soo gudbin doonaa dhinaca haddii aynu eegno maamulada Puntland iyo Somaliland weli waxay wadaan hanjabaado iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay doonayaan inay meesha uga saaraan maamul goboleedka waqooyi bari hadda aynu ka hadlaynay ee cusub ee ku soo biiray maamul goboleedyada dalka Soomaaliya haddii aynu eegno dhinaca Somaliland waxay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan ciidamadii ugu badanaa ayaa lagu diyaariyay xuduudaha waxaana aad iyo aad loo hadalhayaa talaabada Somaliland ay isku diyaarinayso u muuqato mid ay doonayso in ay dagaal ay ku qaado ciidamada SSC Khaatumo markaasi ama maamulka waqooyi bari ee ku sugan jiidaha hore ee dagaal culus ayay Somaliland isku diyaarinaysaa baa la leeyahay mas'uuliyiin badan ayaa hadlay oo ka hadlay maamulka halkaasi laga dhisayo waxay sheegeen inay tahay mid aysan aqbalaynin beesha caalamka qaramada midoobay iyo waliba ururada igad iyo waliba midowga Afrika ayay warqado u gudbiyeen oo codsi ah oo markaasi ay leeyihiin deegaano anaga jamhuuriyadda kamida ayaa laga sameeyay maamul goboleed dawladda federaalka ayaa gacmo badan kula jirta way soo lagu soo xadgudbay iyo wax la mid ah waxay sheegeen inaysan marna aqbalaynin xuduudoodana ay soo xiri doonaan taasoo ay maamulka Somaliland ay sheegaan in xuduudoodu ay ku taalo yoocada oo aad ugu dhow magaalada Garowe ee caasimada maamulka Puntland hanjabaado ayaa socda bal waynu eegi doonaa talaabada ay qaadaan iyadoo dhinaca kalena maamulka Puntland iyaga dhinacoodana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ka wadaan waliba gobolka Sanaag iyo waliba Highland oo markaasi ay leeyihiin waxa looga hortagayaa xadgudubka iyo waliba weerarka qaawan ama duulaanka qaawan ee dawladda federaalka iyo maamulka waqooyi bari loo bixiyay ku soo qaadeen deegaanada Puntland Saciid Cabdullaahi Dani khudbadiisii waad ogeydeen wuxuu yiri waxaan adkaynaynaa oo ilaalinaynaa buu yiri shuruucdii iyo wixii lagu aas-aasay Puntland 98 ama 1998 goboladii Puntland lagu aas-aasay ayaynu adkaynaynaa oo ilaalinaynaa buu yiri taas oo ula jeedo inaysan markaasi aqoonsanayn maamulka waqooyi bari ee markaasi ka aas-aasmay qaar kamida goboladii 98kii lagu aas-aasay Puntland oo hadda maamul goboleed gaar noqday xaaladdu marka way cakiran tahay waxaad moodaa in maamulka waqooyi barina horay u dhaqaaqay oo shuruudihii iyo waliba hanaankii dawladnimada uu soo dhamaystirmayo maamuladana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo waliba iyadoo aad loo xamanayo in Saciid Dani iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro ay heshiis hoose ku wada galeen in meesha laga saaro maamulka waqooyi bari ee dawladda federaalka Soomaaliyeed ay garwadeen ka kahay waayihii dambe dhismihiisa isla markaana ay markaas iska kaashadaan sidii meesha looga saari lahaa waqooyi bari markaan idin leeyahay waxaa kamid ah deegaanada gobolka Sanaag oo Puntland hadda inta badan ay gacanta ku hayso ciidamadii ugu badanaana ay geysay waana deegaan kamid ah maamulka waqooyi bari Tasturian iyo waliba shacbiyan markii la fiiriyo hanaanka wadqaybsiga ee hadda lagu dhisay magaalada Laascaanood ee caasimada maamulka waqooyi bari waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii la idmo anigoo Santaaga ayaan la socodsiin doonaa halkaan mar waliba ka daawan kartaan waa Warsan TV